madaxweynaha wuxuu yiri dadka oo shiidka ka cabanayo khawaarijta ay lacag u aruurin jireen arintaas waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed inaan ka raali galiyo iyo shabaabka dhalinyarada soo koraysa nooc walba ay leeyihiin arintaas ka raali ahaadaan leeyahay arin idin qabata maaha waa dareemi karaa nin jaamacad ka soo baxay intaas waqti la soo galiyay oo haddana shaqo la'aan caqabadaha uu la kulmaayo nolol ahaan iyo maskaxaam waa dareemi karaa ma istaahishaan laakiin way dhacday 98 wadanka day dhalinyaro shaqo la'aan yihiin wax ay sameynayso mala shaqada aan haysto ani waxay niyadeyda iyo wanaagay farxadeyda ku jirto shacbiga Soomaaliyeed wada faraxsan madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ka codsanaya arintaas inuu raali gelin ka bixiyo arintaas shacbiga Soomaaliyeed uma qalanto madaxweynuhu arintaas raali gelin ka bixi qofka waalidka iyo qofka wax bartay arin ay dareemi karaan waaye arintaas intaasan kala yahay marka ilaahay faraj noo wada furo waxaan u rajeynayaa dalkan mid maanta meeshu taagan yahay mid ka wanaagsan oo barwaaqo leh annagoo dhan oo wada shaqo helnay ummadoo dhan oo wada shaqeynayso gabdhaha wada shaqeynayaan ilaahan ka rajeynaynaa biidnillaahi kariim laakiin waxa ma taraysee ani haddii mid walaalkay gaajo hayso ama uu shaqo haysanin boqolkiiba intaas 98 wadanka day dhalinyaro shaqo la'aan yihiin wax ay sameynayso mala shaqada aan haysto ani waxay niyadeyda iyo wanaagay farxadeyda ku jirto shacbiga Soomaaliyeed wada faraxsan dhalinyarada wada faraxsan ayagoo dhan wada shaqo haystaan taasa ay nolosheeda ani macaanteeda ku jirtaa marka dhalinyaro ay raali ahaada waa ognahay dhibaatada ay ku jirtaan waxa inta iyo duruufo iska jiraan dalkan wax ku soo barateen in jawaabtaas la idin siiyana ma mudneenin ka raali ahaada madaxweynuhu adna waxaan ka codsanayaa arintaas waa ka qaldoontay madaxweynuhu gacantan ku qabsanaynaa annaga oo xisaab xildhibaanada saaxiibaday waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed way bukaan wada hadalkaas oo shalay jeedisay wuxuu ku reebay bukaan in aan raali gelin ka bixisid intaasaan kugu nasteexnaan lahaa horta saa sheegtay meeshaasan ka imid maanta riskiga aan ku jirno halkaas markaan joogay kuma jirin xoolo ma soo doonane dal jaceyl ayaa i keenay lacag ma waxaan raadinay dalkaan jeclahay waxaan iri waxa fikrad haysido aqoon armay dalkaaga ku haboonaan lahayd inaad la tagtid marka midaasan ka leeyahay xoolo doonnimo ma ahane lax jeclo aad dalkaan iga hayso adan waa ogtahay meeshan daraad inta liidu ku dhimatay ani time iska dhiman kartaa laakiin xagga xoogo waa fogtahay in la dhimanaa lafteeda waa la dhimanaya laakiin waxa isleedahay cabaarko shay inta u fududaa amayso u fududeen meeshaas marka taasna ina xisaabta ku dartis Allah ku ogeysiyo taasna midaasan kale yahay aadan u mahadsantiin waa idin salaamaya wallahi arintaas waa arkay warqad horta wali ma aqrinin laakiin qaar waxba la ii sheegay annagana hadda wax sheegid ma rabna moogtahay fadhi ku dirir ma wixii sharci dajiyaalanahay wixii baarlamaanka la keenan ka jawaabeynaa maalinkii naloo keeno ay iyo waqtigeeda ay leedahay dad qaarkood waxay maqlay in la leeyahay muddo kursiya la raadinayaa iyo ilaa doorasho ka dhaceyso waa iska joogaynaa ku qorneed iyo hadda ma u malaynayo madaxweynaha Xasan Sheekh in oo arintaas muddo kororsi iyo waa iska joogaynaa inuu ka fikiraayo barkee warkii ahaa inaan jooga jeclaaya asaga laga haayaa haddii aan aragno wixii oo waa iska joogayaa hadda madaxweynaha waa u sheegaynaa waxaan leenahay inaan madaxweynuhu adab daraad waxaa lahayd inaan jooga jeclaaya si hadda ku joogay laakiin ma u malaynayo in arintaas madaxweynaha uu saas ugu fikiraayo haddaysan wax kale isbedelin annagana shacbiga Soomaaliyeed mar walba waxaa naga go'an wax fiican inaan u qaadno dalkaana dan u shacbiga Soomaaliyeedna dan u naluguma ogo annaga mucaarad ahaan inaan wax dalkan dadka u qalmeyno inaan u qaadno taasaan ka leeyahay idinka mudan khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo Soomaali ha noolaato aadan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh